بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي با مهد اسكله مركل سوكن سوعليي إلى سبحانه وتعالى يا مهد يا هيبد يا شرف يا كرامة يا مان اسكله. إلهي سلام كان غديغي أنغو خوغي حيلد منكو كانسن. الحمد لله نعمة الإسلام، الحمد لله نعمة الإيمان، الحمد لله على كل حال، الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله شكر لله. سود والله له قالق يا خير كجعل إلى سبحانه وتعالى دنبيدين أي دنبيد والدينتين هدافو انت حنوسن الله عافية، انت مرقيسن مرقت الله كدل قاضو، انت مرادك لمرادك ذو خير الله سيو، انت dhimatayna allah u naxariisto qabriyadaha waasiyo gadaashoodna alla nama fineeyo aamin ya rabbi. soo dhawaada xabaab fillah. maalinteena maalin qurux badan allah inooga dhigo, maalin cibaado qurux badan allah imaana allah inooga dhigo, maalin in badan ilaahay xusna allah inooga dhigo. rabbi ayaa salasiinta iskala lana salasiya xaqaha nagu sugo aamin. xabaab fillah soo dhawaada dhamaantiin waan salaamaya meel kasto caalamka igala socotaan. maanta walaalaha qaaliga waa maalin jimca, waa maalin aad u fadli badan, waa maalintii la salaami jiray xabiibka sallallahu alayhi wasallam. in badan ku salli nabiga alayhi salaatu wasalaam oo badso salliga nabiga alayhi salaatu wasalaam. nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiraahday badiya salligayga maalinta jimcada waa la soo bandhigayaa, waliba waxa loo sheegayaa waalidka iyo magacaaga hebel hebel ayaa dhahayaa rasuulka ilaahay oo ku salaamaya, salaantana uu ka radinaya nabiga alayhi salaatu wasalaam. sidoo kale nuurka labada week suuratul kahfi ha hilmaamin maalinta jimcada suuratul kahfi akhriso si aad u heshid labada week nuurka u dhaxeeya oo nabiga alayhi salaatu wasalaam inoo sheegay. sidoo kale maalinta jimcada waxa ku jira saacad aan ducada la soo celinayn oo nabiga alayhi salaatu wasalaam inoo sheegay oo ku tilmaamay bacda العصر oo ku tilmaamay saacada ugu dambaysa maalinta jimcada. ka faa'iideyso ilaahay subhanahu wa ta'ala u tag oo wax walba humuum ah iyo dhibaato walba ku haysata iyo farxad walba iyo riyooyin walba arabti inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku rumeeyo, ilaahay subhanahu wa ta'ala u sheego. ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay ibari ay ka ajiibe ina muhiim waxa ah ina ilaahay u tagtid si ilaahay ku ajiibo. hadaad ilaahay u tagin waxa sugtidba waa khalad. marka waxa muhiim ah ila ilaahay u tagtid oo dhahay ilaahay waxa saraba waxa ay dhibaya. ilaahay subhanahu wa ta'ala waa samiic oo ku maqlaya, ilaahay waa basiir oo ku arkaya qulubtaadu daalcanaya. mustaqbalka waxa mudan doontid ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala caalim u yahay oo og yahay. marka wax walba ilaahay subhanahu wa ta'ala u sheego, waxaana ku ducaysata ilaahay wixii khayr ah adiga ayaa nolosheeda garanaya. ilaahay waafaji insha Allah, ilaahay subhanahu wa ta'ala kuma khasaarin doono. ما شاء الله أحبابي في الله سود وهذا ما أنت وما أنت قصوين كسلي النبي عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله قصوين كإنوسو دياريي وقصوين أدياد وقيمة بضح أحبابي في الله وحنا حش قصوين كشكي ولا لا أنه كانوا بن آذن وتجربية ما شاء الله وسلي النبي كود دالي وحن دال لقلينا ولا لها قالي قال لما يفسدوا مركا ما شاء الله تبارك ولا لها وقت بيجريين نيد وناكسن يقلبي وناكسن يو معنيه يقين دبأه أي لي ماذين ذكرك العجيب كأ وإلهي سبحانه وتعالى إنه شيء نسلي النبي عليه الصلاة والسلام بكفاء يدرسنا ولا له قارئ أذيك أنا سداسو كلا يا رجال بقى قلبي أنا سو حاضر سو معنيه محشق إلهي سبحانه وتعالى ملون أكثنا كقبته المحبة النبي عليه الصلاة والسلام أجعش هاي أجر راذين يزيد إن معنيه قصة ميسو يا لقى جبهين هاي ما شاء الله ولا له قارئ أسلي النبي عليه الصلاة والسلام إن فرحضو iyo murugado lagaaga tagsiyo iyo dambigaaga lagu dhaafo. ilaahay subhanahu darajadaada kor yeelayo, ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu humuumtaada iyo riyooyinka kugu rumaynayo. ma sha Allah intaas oo dhan marar badan ka soo hadalnay oo wala wada socotaan saliga nabiga alayhi salaatu wasalaam inuu farxado iyo barakooyin iyo khayraad iyo nimcooyin ka buuxaan. marka xabaab fillah soo dhawaada. القصة ugu horeysa ayaan ka sheekeynaa. qisadan waxa ka sheekeynaya nin ayaa ka sheekeynaya walaalaha qaaliga. wuxuu yiraahday waan xanuunsaday, waxaan dareemay buu dhahay maalmaha kamid ah anoo iska caadiya oo nolol maalmeedkayga ku dhex jira ayaa waxaan dareemay buu dhahay daal iyo tabar darro. wuxuu yiraahday waan walbahaaray, waxaan ku fakiray lacagtii aan dhakhtarka ku tagi lahaa sidaan u soo kasban lahaa u raadsan lahaa. wuxuu yiraahday lacagtii markaan soo helay dhakhtarkii ayaan tagay buu dhahay. waxaan aaday dhakhtarkii waxaa la iiga helay cudur
daba dheeraaday oo muddo dheer i hayay buu dhahay oo jirkeyga ku faafay kadib waxa igu dhacay buu dhahay stress ayaa igu dhacay maalintii markaa isbitaalka tagay buu dhahay oo cudurka la ii sheegay buu dhahay cudurkaas inuu jirkeygii ku faafay oo muddo dheer uu hayay oo daba dheeraaday markii la ii sheegay wuxuu dhahay waan walbahaaray maskaxdayda stress ayaa waa istaba martay wada maskaxdaydii waxaan xasuustaa buu dhahay xataa waxaan ka dhumay buu dhahay gurigeygii ayaan ka dhumay buu dhahay waxa dhacday buu dhahay markaan dhumay oo meel cidlo aanoo maraya aan arkay oo aan gurigeygiiba ahayn meel kale aanoo maraya aan markaas arkay meel bannaan ah oo xasha cidlo ah oo gurigeygina ahayn ayaan iska fariistay buu dhahay waxaan soo xasuustay buu dhahay jamcadii dhaweyd oo waqtiga wiigaas lagu jiray waqtiga usbuuca lagu jiray jamcadiisii imaamku wuxuu ka hadlay fadliga saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna ka sheekeeyay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay humuumta iyo dhibaatada kaaga dulqaadayo wixii igu weynaa markaa i hayay wuxuu ahaa xanuunka markii lagu sheegay maskaxdayda astawmadhay waan istreesay waxbaa i gaaray buu dhahay dhaawac wuxuu yidhahday guriga hataa waa ka dhawa xasuustii baa iga tagtay meeshii aanoo fadhiya ayaan bilaabay buu dhahay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday 1000 jeer markaa nabiga ku saliyay buu dhahay tusbaxaygii waan watay tasbiixda aan ku jeer nabiga ku saliyay ayaan ducaystay waxaan dhahay ilaahayow khayrka i waafaji ayaan dhahay buu dhahay wuxuuna yiraahday waan ka soo tagay meeshii cildada ahayd gurigeygii baan imid hawlahaygii baan dhamaystay waan iska seexday buu dhahay habeen bay noqotay waan seexday buu dhahay waxaan ku riyooday buu dhahay habeenkii markaan seexday riyo cajiib ah oo aad iyo aad ii farxad gelisay buu dhahay aniga oo dhididsan ayaan soo booday buu dhahay oo faraxsan kadib wuxuu yidhaha waan iska fiicnaaday xanuunkii iyo kaarkiina waa iga fuqeen nabiga calayhi salaatu wasalaam salligiisii ayaan iska waday waan ducaysanayay cibaadooyinkaygii wuxuu dhahay maadaama cudur halis lagu sheegay cibaadooyinkaasi laba jibaaray ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga xirnaa waxaan dhahay geeri hadday ku timaadana xaq weeye wuxuu yidhahdaa anoo iska samirsan ayaa maalmaha kamid waxaan isna bal dhakhtarkii maa ku laabat waad fiican tahay markaan muddo fiicnaayo aan iska degay oo qalbigiina ii degay xanuunkii iyo alamkii iyo dhibtiina iga bacday ayaan waxaan ku go-aan ku gaaraan dhakhtarkii ku laabto dhakhtarkii baa u tegay waana baaritaan baa laygu sameeyey waxaana laygu yiraahday cudur iyo waxba kuma hayaan cajiib maasha allah tabaarakallah saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam qisadaasaan ka arkay buu dhahay ilaahay subxaana watacaala fadligiisa buu igu caafiyey uma wuxuu yidhi saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aad u badsaday qisada labaad walaalaha qaaliga asagana nin baa ka sheekeynaya ninka wuxuu yidhi muddo dheer buu reer lahaa ninkaas wuxuu yidhi muddo dheer ayaan reer lahaa ilaahay subxaana watacaala awlaad ima siin buu yidhaahday ninkii waxaa loo sheegay in dhakhtar buu tagay waxaa loo sheegay inuu madhalays yahay oo waxba uusan dhali karin ninkii waxaa ku dhacay stress neerfe ayaa ku dhacay wuu xanuunsaday cudurrada nafsiga ayaa ku dhacay waxaa loo geeyey asagoo xanuunsan oo meeshii uu joogay xanuunsaday oo shaqadiisii wadan waayey oo stress uu ku dhacay sidii waali camal neerfe camal uu iska dhacayo ayaa waxaa loo geeyay aabihiis oo magaalo kala deganaa ayaa wiilkaaga u xanuunsaday aabihiisa lagu geeyo maadaama uu meel kaligiis uu ku noolaan karin oo uusan controli karin uu neerfe ku dhacay iyo cudur nafsi uu ku dhacay isla sheekaystay markii lagu yiraahday waxaa tahay madhalays kadib wuxuu yiraahday ninkii ka sheekeynay wuxuu yiraahday aabihiis markuu u tagay oo xanuunkiisa aabihiis loogu geeyey ayuu aabihii wuxuu ku yiri wiilkaygiiow saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam badso wix ilaahay subxaana watacaala uu ku siin waayo xigmadiisa weeye haddii awlaad aweydi ma ahan inaa nafsadaada ku ciyaarto ilaahay baa awlaada bixiyee bal murugada ku haysa saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam badso wax walba waad ku helaysaa saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii wuxuu bilaabay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisu iska aadi jiray kadib ilaahay subxaana watacaala walwalkii iyo stresskii wuu ka baaba'ayo ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku soo celiyay normalkiisii sidiisii hore ayuu noqday kadib markuu fiicnaaday kadib ayaa reerkiisii ayuu ku laabtay oo magaaladii kale oo aabihii jooga maaha magaaladii kale ayuu ku laabtay kadib ilaahay subxaana watacaala wuu caafiyey noloshiisii ayuu iska sii watay muddo kadib ilaahay subxaana watacaala wuxuu siiyey awlaad
ninka waxaa la weydiiyey saliga nabiga ma waday ilaa muddada ahaa buu dhahay marna ma aana joojin waayo markaan joojiyo wuxuu dhahay maskaxdayda ayaa wax si ka noqonayeen mar walba saliga nabiga ayuu ahaa kaniiniga ama daawadii aan ku noolaa waxay ahayd buu dhahay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay murugadii iiga dulqaaday iyo dhibaatadii haleeshay ilaahayna awlaadu iga arsaaqay buu dhahay cajiib maasha allah tabaarakallah ilaahay baa ina siiyey aan ka faa'iidaysan axbaay filaa qisada saddexaad ayadan wiil baa ka sheekeynaya wiilkan wuxuu yiraahday xumaanta ayaan ku fogaaday buu dhahaa xumaantaan samayn jiray kadib wuxuu yiraahday xumaantii markay iga badatay oo wuxuu yiraahday waxaan doono xumaana de iska sameeyo oo islaamnimadiiba aan ka gudbay buu dhahay ayaa waxa igu dhacay walbahaar ciqaab baan galay buu dhahay waan fakari jiray waxyaalihii xumaanta ahaa ee faraha badnaa aan samayn jiray ayaan wuxuu dhahay ka fakari jiray markaan xasuusto waxaan ku fakari jiray inaan isdilo buu dhahay xumaantii marka aan ka fakaro inaan isdilo ayaan go'aan ku gaari jiray buu dhahay wuxuu dhahay maalin anuu iska fakarsan oo ku fakaraya sidee baa isku dishaa ka fakaraya waxa soo wacay uu dhahay saaxiibkay ayaa maalin isoo wacay wuxuuna igu yiri saaxiib maxaa la murugaysan tahay wuxuu igu yiri waxa ay haya waxa ay hayuu dhaha oo markaa la murugaysnaa iyo xumaantii iyo waxaan samayn jiray fuxshigii saaxiibkay kama warqabo dhaha iyo waxaan samayn jiray waxa dhacday buu dhahay in aan u sheego oo waan ka xishooday buu dhahay waxaan ku iri buu dhahay ganacsigii ayaa iga khasaaray ganacsiga iga khasaaray sidaa darteed baa la murugaysanahay wuxuu igu yiri buu dhahay habeenkii markaa caawa seexato xilliga dambe soo kac oo maxaa qiyaamul leyl u soo kac xilliga ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo dago 2 ragco tuko kadibna wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam salligiisa badso sidaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala murugada iyo dhibta uu ka saaraya wiilkii wuxuu dhahay markii la gaaray buu dhahay habeenkii waxaan soo kacay xilligii akhiirka ahaa oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo degayay 2 ragcadood baan tukaday waan weesaystay 2 ragcadood baan tukaday kadib wuxuu yiraahday waxaan bilaabay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam markaan ducaystay kadib saliga nabiga ayaan bilaabay salaadii subax baa laygu adimay salaadii subax baan tukaday kadib wuxuu yiraahday sidaas maalintii waxay iigu dhalatay anigoo faraxsan buu dhahay murugadii iyo walbahaarkii wixii dhan iga been habeen walba sidii baan samayn jiray habeen walba waxa soo kici jiray xilliga akhiirka ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo dago rabbul caalamiin ku waa iga dulfayday buu dhahay dhibaatadii haysatay wixii aan ka fakari jiray ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu iga tirtiray wuxuu dhahay qof faraxsan ayaan noqday buu dhahay dunida waxaan soo toosay buu dhahay subaxyada kamid ah anigoo ah qofka dunida ugu farxadda badan wuxuu dhahay murugadii aan dareemayay saacado ka hor oo ahayd buu dhahay adduunka qof oo ahayd adduun aan ahaa qofka adduunka ugu murugada badan oo de murugadaydu gaarsiisnayd buu dhahay inaan isdilo oo aan nafta isdhaafiyo subxaanallah wuxuu yiri ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu igu bedelay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiraahday ilaahay baa mahad iska leh saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam qisadaasaan ka arkay rabbul caalamiin wuxuu dhahay ayaa i waafajiyay iyo wiilka saaxiibkay oo ii sheegay ilaahay asagana ajir ha ka siiyo anigana wuxuu yiraahday intaan noolahay ma dayn doono ilaahay subxaanahu wa ta'aala dambi dhaaf badan ayaan weydiistay inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ii dambi dhaafo dhibaatadii iyo xumaantii waxaan soo samayn jiray ilaahayna qalbigayga wuu ka saaray buu dhahay alxamdulillah ilaahay baa mahadaas kale qisada afraad walaalaha qaaliga gabar ayaa ka sheekeynaysa gabadhan waxa ay haystay bitir murugo waxaan ku salin jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam murugadii markay iga badatay markaan sariirta tago waxay tiri 100 jeer aan nabiga ku salin jiray markaan soo kacana 100 jeer salaad subax kadib waxaan noqday bay tiri qof faraxsan waxay tirahay iga xirnaa bay tiraad cilmiga barashadiisa ilaahay wuxuu barashadii cilmiga ayuu ii fududeeyay waliba waxay tiraahday cilmiga diiniga ah ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ii fududeeyay waxaan bilaabay bay tiraahday jamco kaste inaan akhristo suuratul kahfi awal waxay tiri suuratul kahfi maanan aqoonin laakiin markaa kadib baan bartay bay tiraahday markaan saliga nabiga bartay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu igu furay inaan diintii barto oo quraankii barto kadibna waxay tiraahday la imaado waajibaadkii ilaahay subxaanahu wa ta'aala na saaray oo waxay tiraahday suuratul kahfi ayaama akhrisan jiray bay tiri muddo yar kadib awalna maan aqoon bay tiraahday maasha Allah waxay tiraahday waan ducaysan jiray nabiga ayaan ku salin jiray waxa iga maqnaa nimco weyn bay tiraahday hadda waxaan ahay bay tiri ehlu dikri awalna waxay tiri nimcadaas ma aanan ogeyn cajiib maasha Allah tabarakallah qisooyinka walaalaha qaaliga intaas ku egyihiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayrka hana waafajiyo ilaahay hanaga dhigo kuwa saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dadaala maalinta jimcadana aad iyo aad u badiya
ما شاء الله كفائدة سنو سلق النبي عليه الصلاة والسلام وجهنا قصوين كوذا مرقدة ما أنت ما شاء الله وذا مرق إلهي سبحانه وتعالى وحوق السار ولا لهاس لبتاس وحوق السار ولا لها قالقة سلق النبي عليه الصلاة والسلام عجيب ولا لها قالقة والذكر آدي وقيمة بدن وإلهي سبحانه وتعالى نسيي marka waxaan ka baahan yahay inaad dadaal gelin axbaay fillah wabillahi tawfiiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.